wasiir hore oo saaxiib la ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadkii ugu dhawaana ku jiro ayaa waxa uu soo qoray faallo oo ku cabiraya Soomaaliya waxa ku sababay inay dawlad la'aan ahaato 18 sano ee ugu dambeeyay ama dhaqaale kasta oo la geliyo dalkan uu hagaagi waa faallo ka turjumaysa xaaladda dhabta ah ee dalka nin xoogaal ha qoray muuqaalkaasi shargaray aragtida ka dhiyo faallada oo qoray ma sax kula saxanta mise waa qaldanta haddii nagu cusubtaan nagu soo biir Cabdiraxmaan Cinte ayaa lagu magacaabay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya waa nin siyaasi ah waa nin dhalinyaro oo aqoon-yahan ah faalladiisa wuxuu ku bilaabay sidan maanta waxaa magaalada Kampala ee dalka Uganda ka qabsoomay shir madaxeedkii looga arrinsanayay ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee EUSAM shir madaxeedkan waxa uu ku soo beegmayaa 18 sano kadib markii ciidanka ka howl bilaabeen Soomaaliya 31 bishii Maarso ee sanadkii 2007 ku talagalku waxa uu ahaa in 3 sano oo kaliya ay joogaan laakiin hadda 18 sano ay joogaan 18 kaasi sano waxaa Soomaaliya loo soo tababaray ciidan kor u dhaafaya 100,000 oo askari waxaa balaayiin doolar lagu bixiyay habeenta iyo tayeenta ciidankeena hiil iyo hooba waxa uu adduunku la garab istaagay xukuumadihii hoggaanka dalka isaga dambeeyay muddadaas yoolka ugu muhiimsan ee ciidankaasi loo keenay dalkeena waxa uu ahaa inay barataaraan dawladda nugul oo garab iyo gaashaan ugu baahneed si ay amniga geygeeda ugu filnaato ugana adkaato kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab madaxdii isaga dambeysay hoggaanka dalka waxay shacabkooda iyo adduunkuba u ballan qaadayeen inay gaari doonaan isku filnaan amni khawaarijtana ka adkaan doonaan lagana maarmi doono ciidanka ajnabiga ah ee dalka jooga ha yeeshee marka uu sii dhamaanayo muddaxileedkooda ayuu madaxweyne walba afka furanayay isagoo ku cabaadayay in mar kale fursad la siiyo si uu dib ugu soo dhiso ciidan tayo leh oo hanan kara amniga dalka sida uu suubanayna nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay inoo sheegay qofka muslimka ah hal god laba mar lagama qaniino runta qaraar waatana marka dhibaatooyinka oo cabiraya waxay tahay hoggaanka dalka isaga dambeeyay 18 kaasi sano waxay ku sumudaysnaayeen wax aan ugu yeero ta 6 waa ta 6 ama T6 wax la yiraahdo ama saddexdan ta waa 6dan ta ayay ku cabirnaayeen waa 6 ta waxa uu yiri kow tuugaysi xoolo qaran 2 tolaysi xigto beeled 3 ku takrifal xoogga dawladda 4 tuugsi xoolo shisheeye 5 tayaxumo la taliyaal 6 tiro gaabni xikmadeed 6daasi ta ayuu ku sheegay inay dhammaantoodba ka sinaayeen 18 kaasi sano hogaamiyaashii dalka isaga dambeeyay hoggaanka intaas oo sifood kulansaday ma dhisin ma dhisayo mana dhisi doono ciidan qaran oo hanan kara amniga qaranka ciidan kaliya ma ahane xataa ma dhisi karo hay'ado dawladeed oo dalka samata bixin kara khawaarijta argagixisada iyo xoogagga gale ee halista jiritaanka qarankeena waa halista ku ah jiritaanka qarankeena waxay ku naaxan kuna bulaalaan hab dhaqanka 6daasi ta ee ma ahan wayaan malahan itaal ay iskood u tacbadeen macnaha waxay ku naaxan 6daasi ta oo uu soo sheegay ee malahan buu yiri argagixisadu itaal kale oo ay wax ku tabcadaan oo xoog ku yeeshaan malahan Soomaalidu waxay tiraahdaa gacan daahir ah ayaa wax daahirisa dalleeyda 6da ta inaan ka sugno inay khawaarijta ka adkaadaan waa halkii laga oran jiray dhada roob noqon weyday wuxuu ku soo gabagabay qoraalkiisa waxa la soo gaaray xilligii lagu kacdoomi lahaa hab dhaqanka T6 oo ay ku sifoobeen inta badan hal doorka siyaasadda waxa la mahuraan ah in la soo bandhigo aragti qaran oo lagu badbaadin karo dalka kana tarjumaysa himilada ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan hoggaanka ay cadaaladda hab dhaqan u tahay sidaan laguma sii jiri karo ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabay Cabdiraxmaan Cinte wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya nin dhalinyaro muddo dheer saxaafadda Soomaalida iyo midda caalamka ku soo jiray oo horumar ka gaaray sidoo kalena ah nin siyaasi ah
oo diblomaasi ah ama siyaabo kala duwan siyaasadda adduunka uga soo shaqeeya aragtidaada adiga nala wadaag faallada uu qoray cabdiraxmaan cinte sidee u aragtaa kula saxan tahay mise waa kula qaldan tahay cabdi cinte waa ninkaa ka soo sheekeynay oo siyaabo kala duwan siyaasadda Soomaaliyana uga soo shaqeeyay aad waa maasanta aragtida qaybta hoose faallada si nagu reeb muuqaalkana si shargarey Soomaaliya muddo dheer dhibaato ka taagneed dadkeedana waxay ku dhibtanaayeen ama ay dhibaato ku qabeen hogaamiyaha ay dooran lahaayeen si kasta oo ay duruufo u adkaayeen maalinba nooc doorasho la qabanayay hadda rajada ugu weyn waxa weeye dalkan inay ka qabsoonto doorasho qof iyo coda magaalada Muqdisho waxa ka dhacaya doorashooyinka golaha deegaanka ee degmooyinka dhawaan ayayna dhici doontaa laakiin hadda waxa socota diiwaan gelintii dadweynaha codeyn lahaa kadibna waxa la sii doonaa kaarkii ay ku codeyn lahaayeen dabadeedna waxa dhici doonto doorashadii inay sabab u galaan oo ay wax doortaan dhowr degmo ayaa hore loogu soo qabtay diiwaan gelintaas oo dadka kaarka lagu siin lahaa si hordhac loo diiwaan geliyay kadibna kaarka u soo bixi doona haddana 6 degmo oo ah kuwa ugu waaweyn magaalada ayaa maanta loo fadhiyaa dadkeedu inay sabab u galaan diiwaan gelintaas kadibna kaarka ay helaan degmooyinkaas ayaa kala ah Kaaraan Hiliwaa Yaaqshid Wardhiigley Howlwadaag iyo Hodan 6daasi degmo oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho ayay maanta dadka ama guddiga u fadhiyaan inay dadka degmooyinkaasi ku nool u diiwaan geliyaan sidii ay kaarka codbixinta u heli lahaayeen kadibna ay ugu dooran lahaayeen golaha deegaanka ee degmada dabadeedna sidoo kale isla kaarkaas ay doorashada gobolka ugu gali lahaayeen marka ugu dambeysana ay ugu gali lahaayeen doorashada ilaa madaxweyne haddii lagu heshiyo dad badan oo waxaa jira mucaarada oo isku dayaya inay marin habaabiyaan shacabka inay duwaan doorashada inay wax xun ka dhigaan laakiin mustaqbalka Soomaaliya badbaadada dalkan iyo badbaadada bulshada Soomaaliyeed waxa kaliya ay ku xiran tahay inay ayagu doortaan oo codkooda ay ku doortaan qofka ay u arkaan inuu dalka badbaadi karo in laga baxo musuqmaasuqa in laga adkaado al-shabaab in laga baxo shaqo la'aanta in dalkan uu noqdo dal Soomaaliyeed oo xoog leh iyo dalkii la yaqaanay kaliya waxay ku xiran tahay dadweynuhu inay doortaan qofka ay rabaan oo ay qabiil meel iska dhigaan dabadeedna tayo wax lagu doorto iyo wax qabad laakiin dad siyaasiyiin ayaa waxay isku dayayaan inay shacabka ay u xumeeyaan oo ay marin habaabiyaan arrinta Soomaaliya muddo dheer ayay ku soo jirtay doorashooyinka dadban laga soo bilaabo ilaa 2000 ilaa hadda iyo xataa ka sii hor muddadaasina Soomaaliya waxa la geliyay lacag bilyanis ah lacagahaasina waxa la sheegaa oo kaliya inay siyaasiyiintu darahooda ku qabsadaan dalkan aan lagu dhisin ilaa haddana adduunyadu waxay joogtaa heer quusasho ah kaliya waxa dhibaatooyinkaas looga gudbi karaa oo dadka Soomaalida ah amni darrada iyo shaqo la'aanta iyo burburka waddanka ka jira iyo dawladnimadii oo daciif uga bixi karaan inay hebel lama rabno hebelna waa rabnaa ay dhahaan mustaqbalkooda ku xiran si kasta oo ay siyaasiyiintu u xumeeyaan iyo si kasta oo dadka danaha dhaqaale kale u xumeeyaan waxaa la rabaa bulshada Soomaaliyeed ayaga ku xisaabtamaan badbaadada dalkooda wuxuu ku jiraa in ayaga qofka ay rabaan ay doortaan maanta diiwaan gelin xoog leh ayaa socota oo ka xoog badan tii hore dadkii hore ka tiro badan ayaa safar u galay ammaankana aad ayaa loo adkeeyay ciidamada booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa jagboontiyada ayaana ilaalo xoog leh halkaas ka hayo sidoo kale waxaa jira ciidan gaar ah oo doorashada loo qorsheeyay ayagana ammaanka sugay in 6daasi degmo oo ku ugu waaweyn magaalada ah dadka ugu badanna ay degan yihiin maanta safar looga jiro dadkiina ay soo wada baxeen waxay muujinaysaa baahida ay shacabka u qabaan inay doorashooyin dadweyne dalka ka dhacaan gaar ahaan magaaladan dabadeedna hogaamiyaha ay rabaan ay doortaan min degmo ilaa gobol ilaa qaran aad u maadsan tahay aragtida qaybta hoose faallada noore buuqa kana si shargaray haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir